السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وويلكني وويلكودي كيكيرا بابستار دي كولست كين محاك في الليسين مانتي مقال عصب مقال كانوا حكو سابسين هاي بارتو شاكي شعترو فضلا انتان مقال كان اوقود قلن يوتيوب جانال كنا عداد كو عصب تاي بليز سبسكرايب لايك شير كومنت مانت ما حادين وضا وحانيدين وضا بارتو برنامج كنا لما عبحي شاكيو شعترو شاكيدو كود ايا بحي sidaan soo socota xariif cabtuy ah ayaa hadda ka hor shirkadda hormuud wacay markii laga qabtay oo la dhahay walaal maxaan kaa caawinaa kulaha walaalkii igeer ayaa simkaarkii laqay hadduu hadlo lacag ma igu socoto midda labaad ayaa waxay leedahay xariif military ah ayaa dagaal ka dhacay Itoobiya asxaabtiisa ku waayay dabadeed markii laga guuleystay xariifkii wuxuu arkay cadowgii oo ku soo socda wuxuu iska dhigay ruux dhintay markaas xawaalaha loo qaaday aad ayuu u farxay markuu arkay qoyskii oo dhan kulaha anigu waa noolahay markaasay qoyskii dhaheen aamus adigu ma dhakhtarkaad tahay ka cilmi badan tahay uu dhahay moogtahay adigu ma dhakhtarkaad ka cilmi badan tahay isaga geerida xaqiijiyey xariifka sidaasaa lagu duugay midda saddexaad ayaa waxay leedahay islaan daalan baa ayadoo salaad tukanaysa halka faatixada akhrin lahayd ayay atixiyaadkii akhrisay odaygeedii oo aan ka fogeyn ayaa intuu maqlay wuxuu yiri heblaayoy waxaan la yaabanahay waxaad fadhiga ku akhrin doontid hadda ka hor ayaa mid afraad waxay leedahay sheekada afraad hadda ka hor ayaa oday meel zab waliimo ka jirto ku soo leexday markii la gaaray xilligii cuntada ayaa loo keenay bariis uu basbaaska buuxo odaygii intuu indhaha cadeeyay oo dhidid kulul ka imaaday ayuu xarfaantii la fadhiyay weydiiyey cuntadan yaa loo bixinaa markaas ayuu ku jawaabeen duqeblaayo ayaa fiidow loo akhrinayaa oo qabrigeeda loo qaboojinayaa markaas ayuu yiri walle hadda loo hor bilowday waana ka istaagay midda shanaad ayaa waxay leedahay nin reer mudug ah oo geel soo dhacay baa waxaa ku galay waqtigii salaada way tukadeen markii ay salaada ka baxeen iyagoo tasbiixsanaya ayaa waxaa soo agmaray mid ay isgaranayeen way iska saa qofkan wuxuu yiri war geel islaameed ayaad soo dhacdeene maxaad ka tukanaysaan kii imaamka u ahaa baa u jawaabay adeer annagu rag baan ishaynaa ee ilaahay isma hayno kulaha ruuxaani oo dhib badnaa midda lixaad ayaa waxay leedahay hadda ka hor dad oo wada socdo waxaa dhacday in oo hal maqribkii lagu gaari dadkan way booreystay hal qofood waxaa liyo salaada nootuji markii la dhahay ninkan salaada markuu tujiyey salaad markii laga baxay waxaa la dhahay niyo waa codkaagu waa macaan war cod macaana leedahay waa asoo lahay arkano ruuliyaa ma arkano isgaaro kulaha anima wali soo isqaadan kulaha guys halaas ayuu noo egyahay lixdaas sheeko insha allah muuqaalkan hadduu kusoo gaaro please share garey like garey comment garey subscribe kan bac soo sii brothers and girls waxay leeyahay sidaas iyo kulati dambe xiisa leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.